مشرح مدحوينها بنتلان جنرال خليف عيسى مدن iyo جنرال عبد الله جامع الكجير ayaa maanta booqasho ku tagay xirada ciidamada daraawiishta Puntland ee konton afraad oo ku taala dureedka caasimadda Puntland ee Garowe ujeedada booqashadooda ayaa salka ku haysay inay u kurgalaan xaaladaha ay ku nool yihiin ciidamada ku sugan xiradan ciidanka daraawiishta Puntland oo xirada ugu weyn ee mantiqada dhulka uduga Puntland General Khaliif Ciise Mudan oo horey u soo noqday wasiirka amniga Puntland kana mid ahaa saraakiishii dawladda kacaanka Soomaaliya ayaa ciidanka kula dardaarmay ilaalinta xuduudaha Puntland xilliga doorashada iyo sugidda amniga magaalooyinka Puntland waxaana dhinaca kale musharruxu uu ku wareejiyay ciidamada deeq laba neef oo geel ah isagoo sidoo kale sheegay hadii la doorto inaysan dhici doonin in ciidamadu ay mushaar waayaan isla markaasna uu dhisi doono ciidan awood leh oo ay Puntland yeelato ciidanka daraawiishta ha guuleysto Puntland ha guuleysto cadowgeeda iska difaacdo cadowgeeda ha dhaco cadowgeeda ha dhaco idinka guuleysta maanta waan soo booqanay waxaan idin soo booqanay waxa weeye inaan aragno xerada iyo ciidanka jooga iyo duruufaha ay ku nool yihiin xeradan waa xerada ugu weyn oo ciidamadeena daraawiishta taliskeeda ah waxyaalaha aan isu sharaxayno oo nagu kalifayna sharaxno waxa ka mid ah in ciidamada qalabka sida ee Puntland dib loo habeeyo la dhiso xuquuqdoodii ka maqnaydna loo raadiyo la siiyo tan ay leeyihiin ay dib uga maqnaan waxaan noo qorshaysan inaanu sameeyno ciidan xoog leh oo abaabulan oo xaqiisa hela oo mushaarooyinka loo kordhiyo oo daryeelka loo badiyo kadibna loo sameeyo goobo ay ka difaacaan dalka Xasan Faarax Puntland TV Garowe